wasiirka hore ee wasaarada maaliyada Soomaaliland Marwa Samsam Cabdi Aadan ayaa si rasmi ah waxa mas'uuliyadda ay ugu wareejisay wasiirka cusub ee wasaaradaasi loo soo magacaabay mudane Yuusuf Maxamed Cabdi. munaasabada xil wareejinta oo ka dhacday dhismo cusub ee wasaarada maaliyadu ay leedahay ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin kala socday laamaha ilaalinta hantida qaranka, mas'uuliyiinta xilalka la kala wareegay, xildhibaano, shaqaalaha wasaaradda iyo haldoor kala duwan oo munaasabada goobjoog ka ahaa. waxaana goobtaasi ka hadlay mas'uuliyiin uu kamid yahay agaasimaha guud ee wasaarada maaliyada, xubno ka tirsan saraakiisha wasaaradda, wasiir ku-xigeenkii iyo wasiiru dawlihii hore ee wasaarada maaliyada, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale. wasiirkii maaliyada ee xilka wareejisay Samsam Cabdi Aadan ayaa waxay soo bandhigtay waxyaabaha ay ka qabatay wasaaradda labadii sanadood ee la soo dhaafay oo ay haysay xilka wasaaraddaasi. waxaan ku hambalyeeyaa wasiiradii iga horeeyay isbedelay Maxamed Xaashi waa ninka baray dadku inay cashuurta bixiyaan. waayo dawladii hore u dhibaato kale kuma dhicin waxa weeye cashuurtu ma dadku bixineen, laakiin si isagu wuxuu khasab kaga dhigay axsaan cidaan u galay cashuurta si siman dadka u baahan inay bixiyaan. waxa maanta wasaaradda maaliyadu ay ku faanaysaa horta deyn lagu leeyahay ma jirto. dadku waxay iska lahaayeen baryahan oo dhan deyn baa la wareejinayaa. deyntu waxa intaan imika dhaqaaqo anigoo wasiirkii maaliyadda bakhaar intaan taga ma oran karo 2 milyan ama maahi qofna ma maahinay soo maaha. deynta la sheegay wasaaradda lagu yeeshay ama dawladda lagu yeeshay waxa weeyaan tiyo mushaharka la bixin kari waayo ama raashinka ciidamada la bixin kari waayo. horta waan bixino November mushaharkeega waa la qaatay. waxay kale wasaaradda maaliyadda awood u yeelatay inay ka qayb gasho diiwaan gelintii madaniga hay'adda lacagteeda bixisay. waxay kale bixisay doorashadii noomay suurtoodeen haddaanay wasaaradda maaliyaddu guntiga wax ku hay. markii la yiri 10 milyan ha bixiso dawladda Soomaaliland haddii kala doorashadii dib u dhacaysa hadhowneedii kala idinku caayaan la oranaya ictiraaf baa sheegtay macaawinada la idinka goynaya. waxay wasaaradda maaliyadda iyo dawladdu oo madaxweynihii hore u horeeya aanu goosanay inaanu 10 milyan bixino waana nu bixinay. maanta waa taan aynu sharafta ku leenahay. miisaaniyadu inta badan waa sideedii, laakiin 10 milyan oo kamid ah waxa loo qoondeeyay in lagu mashaariic loogu abuuro dhalinyarada. waayo madaxweynaha cusub wuxuu ku dhawaaqay madaxweynuhu inuu dhalinyarada shaqo abuur u samaynayo. gaadiidkii cusbaa iyo dhismayaashii cusbaa iyo wixii lagu kordhiyay hadday ceelal biyootay wasaaraddu waxay maaliyaddu ka turjintay iyada wixii ay ku shaqaynaysay ee ahaa waxaan bixiyay 19 balance. waxaa lacagta caafimaadka lagama iibin waa wasaaradda maaliyadda budgetkeedii. ceelasha ay waday wasaaradda maaliyaddu intooda badan waxay ka qoday budgetkeega. maqal dukaan hadaad qof u hayso soo 100 jeer kuma xisaabinayo habeenkii, bal adiga ummadda oo dhan maqalkoogii haya waxa weeyaan fi aakhiraba way adag tahay. waxaan leeyahay ha loo duceeyo iyaguna ha ducaystaan oo yiraahdaan ummadda ha weydiistaan maqalka la noo dhiibay inuu ilaahay nagu asturo. noogu duceeya ducada dadku ciyaar ma aha. waxaan anigu noogu ducaynayaa inay namadaas aanay ku kashifmin oo ilaahay caawiyo oo ummadda wixii maqalka ummadda ay u hayaan ilaahay ku xiltiro oo aanay waxba ku baaqan. waana soo dhaweynayaa wasiirka imika la keenay ilaahay baa qadaray inuu noqdo, laakiin hadal ay ku bilowdaan isagoon waxba bilaabin isagoon shaqaynin halka ka taageer lahaydeen horta waa ceeb. waxaa iyada lagu sheegayaa dhalinyarada inaanay waxa ka cadhoonin yaanay jabidi ku ridin shaqadiina wata. wasiirka cusub ee wasaarada maaliyada Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa isna waxa uu sheegay inuu sinaan iyo cadaalad ku maamuli doono shaqaalaha wasaarada maaliyada. waxaan aad u amaanayaa shaqaalaweynaha wasaarada maaliyada qaybaheeda kala duwan. waxaan sidoo kale amaanayaa madaxdii wasaarada maaliyada soo martay ee hormuudka u tahay Marwa Samsam Cabdi Aadan. wasaarada maaliyada anigu waxaan ku soo biiray 1996. waxa aan ka soo bilaabay shaqada Karaani, waxa aan noqday sarkaal, waxa aan noqday madax qaybeed, waxa aan noqday inaan xafiiska kastamka noqdo office management, waxa aan noqday maamule ayaan noqday. maantana waxaan ka ahay wasiir. waxa aan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ku dhaqi doonaa cadaalad iyo sinaan. waxa halkudhigeedu yahay sarreynta sharciga. nidaamkeenu wuxuu ku dhisnaan doonaa wada shaqayn, isla xisaabtan, daahfurnaan
iyo isdabagal. waa la is abaalmarin doonaa. abaalmarintu qofka ama kor bay u qaadi ama hoos bay u ridi. gabagabadii munaasabadana waxaa mas'uuliyiinta cusub ee wasaaradda loo soo magacaabay iyo mas'uuliyiintii horeba ay kala saxiixdeen waraaqaha xil wareejinta iyadoo goobjoog ay ahaayeen mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladdu. cabdishakuur dayib maxamed, Home Cable TV, Hargeysa.